kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda kulan ee magaalada Beledweyne. Dowladda Soomaaliya oo ciidamo dheeraad ah geysay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo safiirka Sweden oo ka wada hadlay khilaafka doorashada ee Soomaaliya. Wadamada Masar iyo Suudaan oo si wadajir ah u sameeyay dhoolatus military. Golaha ammaanka ee qaramada Midoobay oo baaq degdeg ah ka soo saaray khilaafka doorashada ee Soomaaliya. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle oo gaaray degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo kordhay ayaa daawadayaal ku daawan doontaan ee u diyaar garooba warkaas. Golaha ammaanka ee qaramada Midoobay oo ugu baaqay hogaamiyaasha dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada hirgelinta qaab doorasho oo dib loo eegay la iskuna raacsan yahay. Danjiraha Mareykanka u jooga xarunta dhexe ee qaramada Midoobay ee magaalada New York, Ambassador Linda Thomas ayaa hadalkaasi sheegay kadib markii ay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada Midoobay xalay yeesheen shir looga hadlayay xaaladda cakiran ee doorashada Soomaaliya. Danjiraha ayaa waxa uu tilmaamay inay 15 xubnood ee golahaasi walaac xooggan ka muujiyeen qalalaasaha Soomaaliya ee ku aadan hubaal la'aanta qabsoomidda doorashooyinka cusub. waxaana uu ugu baaqay hogaamiyaasha Soomaalidu inay yeeshaan wada hadal wax ku ool ah fursadda ugu horeysa iyadoo ay waxa shuruud ah lagu xirin si loo xalliyo qodobada haatan taagan. Waxa kale oo carabku ku dhuftay in golaha ammaanka ee qaramada Midoobay ee baaqa si wadi doonaan ilaa iyo inta laga qabanayo doorasho lagu wada qanacsan yahay oo ka dhacda Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawi Xuseen oo todobaadyadii la soo dhaafay ku sugnaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa maanta waxa uu gaaray degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wafdiga madaxweynaha Cali Guudlaawi ayaa waxa degmada Warshiq ku soo dhaweeyay golaha deegaanka degmada Warshiq, saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ku sugan degmadaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Warshiq. Intaasi kadib madaxweynaha Hirshabelle oo ah weheliyaan mas'uuliyiinta maamulka degmada Warshiq ayaa waxa uu dhagax dhigay iskuul laga dhisayo xeebta degmadaasi kaas oo ay wax ku baran doonaan dadka ku nool degmada Warshiq iyo tuulooyinka hoostaga. Ciidamada cirka ee Masar iyo Suudaan ayaa Arbacadii si wadajir ah jimicsi ugu qabtay waqooyiga Suudaan sida ay warisay warbaahinta dowladda ee Masar. Dhoolatuskan oo lagu magac daray Gorgolka Niil ka labaad ayaa lagu qabtay saldhigga cirka ee dalka Suudaan, waxaana loogu talagalay in lagu wanaajiyo xirfadaha iyo ciidamada sida ay u fuliyaan howlgallada cirka ee wadajirka ah. Sida Al-Rahmaan ka soo xigtay ciidamada qalabka sida ee waddanka Masar. Dowladda Masar iyo sidoo kale dowladda Suudaan ayaa waxa ay iska kaashanayaan arrimaha ciidamada cirka ee webiga Niil. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa halka uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku qaabilay safiirka Sweden ee Soomaaliya. Kulanka ayaa waxa looga hadlay arrimaha doorashada, caqabadaha hortaagan iyo sida ugu wanaagsan ee uu qabsoomi karo shirweynaha doorashada ee madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada. Madaxweynaha Puntland oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu kulamo kala duwan la qaadanayay wakiilada beesha caalamka kuwaas oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. Wakiilada beesha caalamka ayaa dadaal waxa ay ugu jiraan sidii xal loogu gaari lahaa khilaafka doorashada ee Soomaaliya iyada oo la kulmaya dhinacyada kala duwan ee isku haya arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya.